baaldagayno sanad guurada ka soo wareegatay sanad guuradii 53aad ee ka soo wareegatay markii qarankeena Soomaaliya uu xurnimadiisa dib ula soo laabtay markii aan ka kicinay gumeystihii fajistaha ahaa ee dalkeena kala qaybiyay markii dhalinyarada Soomaaliyeed dhiigooda iyo dheecaankooda ay u halgameen ay markii ugu horeysay caalam Soomaaliyeed oo xora ka taageen labadii gobol ee Soomaaliyana ay midoobeen dhamaantiin ku soo dhawaada xalfadan qiimaha badan عاون وتلقى إننا كحسن وسند جورداس كينو جوي waxaan jecelnahay markayna barnaamijkeena si dhaxgalno waxaan la joogto fanaaniin badan oo Soomaaliyeed oo qiimo badan gaar ahaan kuwa aan ku xusno heesaha wadaniga noo soo hor dhigooda waxaan la joogto abwaanada Hiba Maxamed Cabdullaahi وهاجاك دعوة ديال مركي وحنا هاي أمة مسلمة بقول كيف بقول وحدقن يدبي عادي الدين إنه إن حلفت كستا أو أنفرنا إن أنكبلونا أيضها قرآن كريم كا وحنو يريا محمود حاجي إيمان وإلى آخر الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. حنبليو برنامج ودن كين الصومالية ولا ليال وحى فرحة وينينو قول أي شرف زي كرامه إلا جاري كود لوليو وأحسن تقول دي خطني سدهات إيه عن خادن حرمت ودن كين الصومالية إلهي وحن كبرينا إن سند كان سند كيس كلنا جارسيو أنا خبنا عافمات يؤمن غير يودن كين الصومالية ونبت برواخة آمين والحمد لله رب العالمين. مركان waxaan jeclahay inaan u yeero gudoomiyaha hore ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka UK dabcan Salaad Ismaan Roble dhalinyarada Soomaaliyeed dhamaan marti sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladda tan guddiga qabanqaabada fanaaniinta warfaafinta iyo dhammaan inta kale oo ka soo qayb gashaba dhamaantiin habeen wanaagsan waxa weeye sharaf inoo ah inaan halkaan isugu nimaano annagoo xusayna maalintii gobonnimada iyo midnimada Soomaaliyeed taariikhda ayada ahi waxa weeyaan taariikh fac weyn yeelatay oo iminka muddo aad u balaaran aad u dheer ka soo wareegatay waqtiga asaga laakiin waxa loo xusayaa waxa weeye in halgankaasi markasta uu noqdo mid nool oo la xasuusto oo dadkii Soomaaliyeed oo halgankaas balaaran wax ku soo gaaray ay ogaadaan in dad ka dambeeyo oo wixii u soo halgameen ay weli nooshahay oo maantay weliba sanadkan uu yahay ama dhow waqtigan dambe uu noo yahay ayadoo dib loo soo abaabulay burburkii iyo dhaawicii gaaray gobonnimadii iyo xorriyaddii Soomaaliya ee 60kii qaadatay in hadda Soomaaliya ay u socoto Soomaali dawladnimadeedii iyo sharafkeedii soo ceshanaysa waxa mudan marka dib in aan ugu noqdo halganka Soomaaliya ee gobonnimada wuxuu soo maray taariikh dheer taariikhdaas oo dad badan oo sharaf leh ay ku soo ay soo mareen waxa xusid mudan 1943 in dhalinyaro Soomaaliyeed oo 13 isku yimaadeen oo markaasna ay ku fakareen sidii isticmaalka dalka looga saari lahaa fikirka asaga ahi wuxuu noqday mid miro dhala oo abaabulkaas iyo xuskaasi ay maxaan dhilahaa abaabulka iyo ay bilaabeen halganka asaga ahi
4 sano kadib inuu noqdo mid miro dhala ee u bedelma meeshii awal iska ahayd kalaab ama meel dhalinyaradu isku timaado oo SYC ayaa la oran jiray kalaabka dhalinyarada Soomaaliyeed kalaabkaas oo dhalinyaradu isku imaanaysay inay sidii loo sheegay waliba isticmaalka markaa jooga aan ogoleyn meel dhalinyaradu isku timaado wax ku akhrisato raadiyaasha ku dhageysato ay isku ku sheekaystaan hase dhab ahaan waxay ahayd meesha laga soo unkamiyay halganka go'aandoonka Soomaaliyeed 4 sano ka bacdi 1947 ayaa markaas kalaabkii wuxuu bedelmay xisbi dhaqdhaqaaq go'aandoona oo SYL loo bixiyay halgankaasi markaa wuxuu noqday mid Soomaaliya meel ay joogtaba ee saameeyay ama dhulka Soomaalidu ay degan tahay oo dhan laga soo bilaabo dhulka Soomaaliya galbeed loo yaqiinay dhulka NFD loo yaqaanay dhulka xeebtii Soomaaliyeed ee Faransiisku haystay Djibouti dhulka Somaliland loo yaqiinay oo Ingiriisku haystay iyo dhulkii Italian loo yaqiinay oo Talyaanigu haystay dhammaan meel kasta qofka Soomaaliya jooga halgankaas wuu gaaray xarakadaasna way ka socotay oo xisbiga SYL markaas uu hogaaminayay kadib sanado ka bacdi waxa bilowday axsaabtii kale oo gobolada waqooyi ka bilaabatay oo iyakuna dhinaca Ingiriiska ku qasbayay dawladda Ingiriiska ku riixayay in halganka asaga ah ay noqdaan oo noqdo asaguna mid la talaabo qaada halganka koonfurta looga jiray oo 60 xorriyadiisa la gaaray 1950kii ayaa halgankaasi wuxuu gaaray adduunka dibadda 49kii wuxuu u baxay banaanka u baxay adduunka kale ayuu dhex tagay jamacadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa la geeyay taas oo dagaal badan iyo dood badan ka bacdi keentay in Soomaalida loo garto 10 sano ka bacdi inay xorriyad qaadato 10kaas sanana loo diyaariyo qaabkii ay dawladnimadooda ay ku maamulan lahaayeen marka ay xoroobaan ragga halkaas hawshaas waday culeyskeeda ama aasaaska koowaad waxa xusud mudan ninkii hormuudka u ahaa kalaabka 13ka waxa la oran jiray Yaasiin Cusmaan oo asagu ninka xiriirka dhisay 13 leegada ka bacdina waxa markii xisbiga laga dhigana waxa la gudoomiye looga dhigay nin la yiraahdo Cabdulqaadir Saqaawudiin waxa ku xigay nin la yiraahdo Xaaji Maxamed Xuseen Allah wada naxariiso raggaas waa rag wada tagay oo halganka saldhig u ahaa Yaasiin oo ahaa ninka unuga xiriirka meel kasta oo xisbigaas abaabulka ama kalaabka ama markii dambe xisbigu noqdo madax u ahaa isla markii xisbiga loo bedelay xarakadii loo bedelay xisbiga mudiirka bacdiba wuu dhintay waxa bedelay markaas Cabdullaahi Ciise Maxamuud ayaa xogiyihii guud laga dhigay ilaa iyo xorriyadiina noqday ninka leegada saldhig u ahaa oo Soomaalidu ku dhaadanaysay halgan badan iyo dagaalo badan la soo galay oo xamar ka dhacday Kismaayo ka dhacday Doolobe ka dhacday gobollo badan oo Soomaaliya ayaa dagaal badan ka dhacay oo dad Soomaali ku dhinteen waxyaalaha xusidda mudan oo mucjisooyinka leegada marka laga hadlayo dadkaas walaalnimada iyo dareenka iyo dadnimada ay qabeen waxa kamid aha markii New York ama jamacadda qurumaha Cabdullaahi Ciise loo dirayay Soomaalidu ra'yi waxay qabtay ninka qof kasta oo baxay waa la talaalaya haddii talaalku markaas dad badan ayaa ku jiranay waxa laga baqay marka Cabdullaahi talaalka laftiisa in loo gambado in la sumeeyo marka waxa la yiraahdaa haddii ninkii tagi lahaa la sumeeyo oo dhinto xarakada yaa waday nin Soomaaliyeed soo baxay oo muura la yiraahdo oo Cabdullaahi isku ekaayeen ayiri aniga hal talaal haddii la dhibanayo waa dhinto si Cabdullaahi uu hawshaas u galo يعني runtii waxa weeye qiimo weyn qof nolosh u hibeeyay asagoo nool hadii dhib iimaanayna asagoo gaaran si ninkaasi u badbaado hawshii ayada ahayd u aado waxyaalaha kale oo dhacay waqtiga xorriyada intii halganka lagu jiro waxa kamid ah يعني saameynta dadka Soomaalida si halganka asaga u saameeyay waxa tusaale oo loo soo qaadan kara iyadana leegada waxa jiray nimankan madaxda ma rag la yiraahdo waagi hore isbitoori la oran jiray ama kormeerayaal kormeerayaashaas waxay tagayeen in alla inta aan dhulkan ka hadlay oo Soomaalidu degan tahay waqti kamid ah dagaalkii laba adduunka ayaa markaas dhamaaday oo meel kasta dawladnimadii oo waxa isbedelay wadamadii adduunka dagaaladii isku bedeleen awgeed ayaa muddo dheer waxa dalka Soomaaliya dhulkeeda waxa kala go'o dhacay burcad baa ka dhalatay
kabacdi waxa dhacay nimankii leegada nin la oran jiray maalinguur oo kamid ah dadkii isbitoorayaasha ama dadka kormeerayaasha wareegayay ayaa dhulka Soomaali galbeed oo lacag ka soo arooriyay lacagtii markuu soo arooriyay oo lacagtii sanduuq ku soo ritay oo baawur soo la soo raacay shufta baawurkii meel dhax u gashay dadka dhama la soo dejiyay waa la wada baartay wax istaan laga qaatay ninkan baawurka soo dego way markay walwal waxa haya lacagtii leegada oo soo qaaday bur shuftada inay ka qaadato ayuu aad uga baqay waxa dhacay marka waxa lagu qasbay marka dambe inuu sanduuqi furo sanduuqi markuu furay waxa dhaxtaa lacagtii iyo calanka leegada oo dul saaran nimanka shuftada ay markay lacagtii calanka leegada arkeen yiraahdaan tanta oo soconay maan hal daboolo hatta shuftadii duur ku jirtay ayaa yaani Soomaalinimada dareenka waxa la ka dhaxeeya dadka ayaa ka xishoodeen annakana waajib waxaan ugu ah inaan ilaalino oo mar kasta aan xusno dadkaas halganka ku dhintay oo dhiigoodii maanta anagu aan ku noolnahay oo xorriyadda aan ku haysano Soomaalidu marka maantay waqtigan asaga ah oo adag oo aanu galnay oo aan hadda ka soo kabanayno dawlad la'aanta ka soo kabanayno qof kasto Soomaali waxa waajib ku ah inuu kaalintiisa ka qaato si dawladnimadaas loo adkeyn lahaa oo inoo suurtagal ahayd sharafkii iyo maamuuska adduunka aan ku lahayn inaan ku soo noqono aad iyo aad u mahadsantihiin habeen wanaagsan
waxaan markaan jeclahay inaan u yeero oday Soomaaliyeed cuqaalsha Soomaaliyeed ee wadankan Ingiriiska kamid ah in badanna gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan garab istaaga mar walba Yaasiin bulsho waxaan leeyahay ku soo dhawow Soomaaliya ha noolaato taariikh dib loogu naqdo xaq maaha kulli maanta maalin aan mudan tahay way xaqiiqda inaan xusno waxa dareemaysaan 26 Juun iyo 27 Juun inaan 28 iyo 29 aan rabno gobolada maqnaa inaan helno sida maarta maxaa Soomaali galbeed iyo maarta NFD si aan maarta wadajir isku nimaadno haddana waxay u sii muuqataa xogaa inaan si kala durkeeno marka hadda dawlad noo timid kumeel gaar xogaa calamka goormeelka laga baxay caalamkana aqoonsaday bacdama adduunkina aqoonsaday waxa laga maarmaan ah inaan anagana taageerno wax way tarin hadii doonto laakiin in la taageero oo aan laga hor iman waxaan rajaynayaa bidnillah alkariim Soomaalidu waa dareemaysaan gobolada waqooyi 26 Juun ay qaateen sida taariikhda runta xaqiiqda ay tahay ana Soomaalnimada lagu dilaa marka Soomaaliya la iloobin Soomaalina ha noolaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inaan u yeero oday Soomaaliyeed oo dabcan goobjoog u ahaa xilligii calanka buluuga ay xidigta la saaray Khaliif Ashkir Diini kana mid ahaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya waxaan salaamahayaa ummadda Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaysa meel joogtaba kawda luuliyo waxaan kale too gaar u salaamahayaa sida ii ahayd caadada gabdhaha Soomaaliyeed waxaan marinayaa oo caawa suugaan ka dhigahayaa heestii gabdhaha aan wakiilka uga ahaa oo ay ragga kula hadlahayeen ragow taladiis baadow haddaad hayb iyo tolnimo ku tuurteen dawladdii asaantaan soo dhisnaba tub iyo ceeljoogsi iyo tusmada ka habaabisaan asaad ka tagteen ilmihii markay tabayeen waxqabad tubaakiya qaad taqsiin tiraahdeen waa rabnaa miyaad noo talin kartaa aday kaa taal dhulkee intaa markaan ka tago aan caawa u laabto luuliyo maalintii farxadda badnayd maalintii aan taagnaa maalintii nacawdu qaboobayd maalintii dadku iswada salaamahayey maalintii wajigayagu nuurka lahaa maalintii labadii istaqaanaa hab isi siinaysay labadaan isaqoonna gacanta isku haadinaysay maalintaan u malaynaya haddaan rabbi jannada ka baryo inuu iga aqbali lahaa saaxiibbadayoo tiro badan baa iga dambeeya oo iyagaan u daynhayaa hadalka intiisa kaleeto laakiin anugu aan ka soo qaado wax yaraan ka soo qaato waxaan ka soo qaadanayaa saddex munaasibood baan halkaan u qaybinayaa maalintii ay dhalatay oo aan u farxaynay 22 sano oo murugo ah oo aan u barooranayno iyo maanta oo kow aan bilaabayno ididiilo hor leh ee noo muuqato waxaan la warramahayaa raggii wax ka yidhi arrintaas maantii ay meeshaan joogtay timacadde oo wada og tihiin oo saaxirkii kala guurine sarreeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegee kana siib kana saar usyiri waxaan timacadde u sheegahayaa timacaddow noo soo ducee qabriga nooga soo ducee calankii aad ogayd
oo buluugga ahaa 15 nooc weeye caawa qaar baa madmadow qaar baa diilimo leh waxaan ku farxanaa ninkii meel yar ka siiya calanka buluugga leh kii kale waaba inkiray waxba kama siininba halkaas oo caawa mar hayaa noo soo ducee gabyaagii weynaa oo leegada cali xuseen wuxuu yiri gobonimadii waa haysanaa waana la hubaaye ha yeeshee sidii loo hayaa hadalka joogaaye cali oo waa hayn weyni dhulka ku dhufannay waxaanu helay maalintii aad gabiyeysay dheeman annaan qaymaheeda aqoon iyadiyo maartaba ma aanu kala aqoon dheemantaan helay iyo maartaba ma aanu kala aqoon 22 sano jaba iyo 40 iyo 56 sano oo 22 kaas laga gooyay oo dawladnimo ah haddeero maanta ay joogno ma garanayno meel baan loo wataa baan u maleeynaa laakiin dadkii waa noolyahay dalkiina waa jiraa haatan waxaad moodaa wax iftiinoo inay muuqdaan dayro badan iyo hayti badan oo aniga aan muuqano waa laga sheegayaa carrada bahalka la yiraaho laakiin waxaan isleeyahay markaan kaligay meel istaago wuxuun baa naloo ogolaya raggii dumiye meesha oo haddana u talinaya waxaa la nin bowdada ka jabshay kuma kabo bardow sidii naloo kabi maayo aan ahaan jirnay laakiin waxaan malaynayaa aqligayga miskiinka ah haddaan meel la istaago in naloo ogol yahay wuxuun inaan helo aan bannoolaane waxaana dadka Soomaaliyeed kula talinayaa jaaniskaas iska noolaashaha ah inayna dhumin waana mahadsantiin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay khaliif askir diini oday Soomaaliyeed kamid ahaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed qoraa Soomaaliyeed oo buug badan qoray ahna filosofi Soomaaliyeed oo filosofigu way ugu yar yahay qaybtii fanka gabdhaha Soomaaliyeed waxay leeyihiin heesa noogu raaxeeya على يوم مدر كل الله
xalfadeena ayaa barta kaga jirnaa ku xuseynay sanad guurada kowda luulyo waa markii ay midoobeen labada gobol ee Soomaaliya goboladii koonfur iyo waqooyi ee calanka Soomaaliya lagu midoobay waxaan jeclahay markaan inaan u yeero Soomaaliya waxaan isku nimid Soomaalinimo inaan hambalyo u diro ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto urashadii kowda luulyo 1960 maalintii gumaysaha aan ka xorownay aan walaalownay gobolada kale sida Somaliland, Soomaaliya, Djibouti, Soomaali waa Soomaali, Soomaali ma kala go'do. iyo diirkeed weeye midnimo wax lagu waayay talantee lagu meelay walaalayaalow waxaan idin leeyahay oo haddana idin leeyahay midnimo wax lagu waayay talantee iyo qabiil lagu meelay qabiil wuxuu nagaadsiiyay waad ogtihiin dowladdeena maanta Soomaaliya meeshay marayso meel wanaagsan weeye ummadda Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay garato ciidda iyo calanka yaa iskale ummadda Soomaaliyeed baa iskale Soomaalida ilaa hadeer kacanimadii iyo wadanninimadii qalbiga way ka jecel yihiin laakiin afka maya sidaas awgeed waxaa idin leeyahay Soomaaliyay marka wadaninimada laga hadlayo ummadda waa inay qiiro leedahay qof walba calan waa inuu wataa waa inay baraarujin aad u wanaagsan ee meeshaas ka dhacdo ilaahay ka baqa sheekada yareeya midnimada xoojiya hore ha loo socdo aad baa u mahadsantiin Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato أحيا وطني أحيا وطني يا صومالي أحيا وطني maalintii la qaadi jiray qiimay lahayd laakiin maanta qolqoladii baa naga xoog badis Soomaaliya ha noolaato dabcan xalfadan quruxda badan ee aad aragtaan caawa aad isugu timaadeen dhammaan TV-yada Soomaaliyeed badanna ka soo qayb galeen waxa soo agaasimay oo soo qaban qaabiyay dhalinyaro Soomaaliyeed dhalinyaro aan arag xilligii oo qaranku qaran ahaa maantana aad ugu hamuuman aad ugu baahi qaba inay helaan qaran Soomaaliyeed cizi iyo sharaf iyo karaamo leh waxaan markaan jecelahay inaan u yeero dhalinyarada soo qaban qaabisay mid kamid ah Abdulcasiis Ashkir ku soo dhaw bismillaah mudanayaal iyo marwooy waa salaamantihiin
dhammaan dadka waqtigooda u soo guray inay ka qayb galaan xafladan sharafta leh especially wariyaasha Soomaaliyeed cawada uma kala harin goobtaan taas waxayna tusaysaa inaan friends badan media ku leenahay waxaan hambali u dirayaa ummadda Soomaaliyeed shanta gees ay joogaan oo Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo waxaan hambalyo sidoo kale u dirayaa xornimadii 26 ka soo wareegatay waqooyiga Soomaaliyeed oo calanka noo keenay oo haybad iyo maamuus cawadu waa habeenkii la isku daray ayagana waxaan leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay isku duubni wada socod Soomaaliya maanta waxay ku jirtaa dhibaato aad iyo aad u adag dadkiina halkiinaan fadhiya ayaa looga baahan yahay dhibaatadaas inaad ka saartaan dalka waxaad uga saari kartaan waa soo dhawaata nabadii iftiin ay leedahay iftiinkaas waxa curin kara shacabka Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan isku duuma hadaysan isku duumlin al-shabaab baa guuleysanaysa wadankana waa la qaatay haddii la isku duubnase al-shabaab iyo xulufadeedu waa baaba'ayaan waxaa la yiri African Union ku waxay dhahaan no al-shabaab no money haddee dadku haddii aysan ayagu ayahooda aysan ka tashanno qof uga talinaya male ummadda Soomaaliyeed dhibaato way ka soo daashay dadku waxaad moodaa haddeetaan inay isdaadsadeen ha isdaadanina xilligii leeyni baahnaa waaye guubaabo iyo nabad baan kaga tagaya oo aan u yeero Abdalla Ahmed Sadow waa markii ugu horeysay runtii aan ka hadlo xafladda lagu maamuusayo dabaaldega maalinta xornimada la qaatay inta badan waxa la dhahaa Soomaaliya ha noolaato iyo ha jirto laakiin laguma daro nabad ha ku jirto marka waxaan leeyahay ha lagu daro nabad ha ku jirto hal loo duceeyo annaga qurba joogteena waxaan maqalnaa markasto in Soomaaliya dagaal oo ka dhaco musiibo ay ka dhacdo balaa ay ka dhacdo laakiin mawduucayna markii insha Allah aan duceeyno waana mahadsantii assalaamu calaykum waxaan jeclahay inaan u yeero gudoomiyaha ururka qaranka ee wadankan gabdhaha qaranka Soomaaliyeed Nadiifo Cali nadiif soo dhaw السلام عليكم دمان أمة الصوماليات عاو isugu timid xafladda xorriyada maalinta ay qaadatay ummadda Soomaaliyeed ee ahayd 1 Luulyo waxaan leeyahay dhamaantiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin xafladda 1 Luulyo waa xaflad xageena ka ah mid aan la soo koobi karin waa maalintii ummadda Soomaaliyeed ee koonfurta Soomaaliyeed ay xorowday waa maalintii ay gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed ay midoobeen ay calanka buluuga ah ay wada saarteen marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed hambalyo iyo bogaadin waqtigoon ugu yar awgeed waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo tale dawladeena ayaana halka ka taageersanahay soo dhawaada dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee caaw halkaan isugu timid waad mahadsantihiin waxa inala jooga oo inoo yimid ayadana dabcan caawa fanaaniinteena iyo awaanadeena way inoo joogaan awaanada weyn dabcan gabayo waa ka dhigi doontaan caawa munadiyana ayaa ayadana inoo joogta aad ma santa munadiyana soo waxa weeyaan caawa 1 Luulyo hada 1 Luulyo ma kala xigna waa u simanna raas casayrtu raas kiyambon Soomaalida degan 1 Luulyo waa u simantahay qabiil male qolana male Soomaaliya iskale waxa dhacayna Soomaaliya dhigtay hadii la qadarin waayo oo aan mudnaanteeda la siin calanka waa la goobayn iska daciidana waa la goobayn inaga isqadarin weynay gacmo shisheeye wuxuu yiri magan Allah magan rasuul inta ka tagnay baan iri gaalow magan Allah waxayna haystay inaga isku dhignay Luulyo waanu tacsiyadaynayaa ummadda Soomaaliyeedna waanu tacsiyadaynayaa 26 Juun waa u tacsiyadaynayaa way soo dirirayaan iyo ugaas ku gaaraan ku wada jirno waxaan iri lacagta Luulyo lagu dhigaayo warmaynu yatiinta siino ilaa Luulyo inaga cunno ku kala tagnay
yaa waryaa dhaanka ceelka geeyey maxaa caynka dhabarka mariyo dhoomaha biyihii ka daashay maxay naga wada dhawaajiyey halkaasaynu taagannahay waxaynu ka shaqaynaynaana waa been ee aan run isugu imaana Soomaali naf jeclaysiga iyo nin la jirka inta meel soo dhigano oo run isugu imaano xisaabtano war dalka iyo dadka dambaa laga galay yaa ka galay ma isweydiin oo yaa ina dila waa la ina dilaaye yaa ina dila ma garanayo wax ina dila dalka yaa burburiyay lama yaqaan dadkii yaa kala geeyay lama yaqaan waligeen isagama inaan imaan waxa weeye naf jeclaysi iyo nin jeclaysi qabyaalad hadda waxaan soo wadaa gabayga inuu ku kala tagi lahayn magaciisana waxa la yiraahdaa waxa igu talaahaya inaan dhigaya taariikhda taariikh baa jirta waxa igu talaahaya inaan dhigaya taariikhda qarankii tagoogadu ka jabo toogta calanka iyo taayirada Jabaan bay gashiya meel aan loo tagini shacbiguna yaa sirow buu taagan yahay shacbiguna wuxuu taagan yahay sirow tiradii lama xisaabtamine mar rabtaan inaynu heshiina ragga Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed hadda awal ragga is haystay wax ka daran baa yimi wuxuu yiri hadbaadki iyo haweeyaa timi qolyahan reer galbeedka waxay yiraahdeen dumarka xukunka lagu daro war ilaahay baan ku dhaartay kuwayna hor ordaya waa kuwii nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam iyo quraanku sheegeen guriyaha lagu hayo intay ama ka tawafaan ama ka toobad keenaan hadda doonaysaan ragga Soomaaliyeed inuu heshiiyana dumarka guriyaha ku cesho diinta islaamka aynu qaadan caruura saddex baa hadda isa sharaxday saddex baan idiin ogahay London gudaheeda habeen dhaweed baa tii u dambeysay la iiga yeeray xagee baad u sharaxanta ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed xabar baa waxa isaga haystay Batuule Sheekh Axmed Gaballe iyo ubax tahliil warsame halkaana saddex baa isku haysta bal mar dadka Soomaaliya jooga oo la jooga dawladii oo la jooga dalkii ayagu waxa suubsadaane kuwa qaxootiga UK ku ah oo ku diriraya ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ma isweydiiseen sheekadu waxay taagan tahay qarniyo colaada waqtigan qaadi kari weyne taariikhaha qulqulayay iyo nafsiga qoriga noo saaray aqoonyahanka quustiya jahliga qalinka loo dhiibay qayla dhaanta loo diray dalka iyo BMK iyo qiiqa qaxootiga dadkeeni ku dhumay qaaradaha oo dhan waxa weeye aynu xisaabtanne qabyaalada waxay dungeysaan inaga geeya badda ku shuba one by one baynu wala heshiin kara Soomaaliya waa dad nadiif oo aan wax isu qabin dib kasta oo dhaca waxba isuma qabno gacal iyo walaal baanahay laynama kala guri karo anigaan idin la hadlaaya ayaa matalan xisaaban idin soo qaadaya caawa kawdi luuliyo cabsino ma jidda midda Ilaahay ka sokaysa aniga caruurtaydu waa hawiye aniguna daarood baanahay aabbahay iyo hooyaday bay isaaq baa dhalay wariyaa Soomaali iga maqan waligay caawa qabyaalad ka hor ma iga maqasheen dhagaysta gabaygan marka Soomaaliya waa sidaan anigu ahay Soomaali aniga iga soo qaada tusaale dadka reer waqooyi baa soo haray dadku haday dhibaato tirsadaan gogol baa la dhigi jiray maxaynu inta gogol koofur hadaynu joogno inta qaadna calanka maxaynu gogol inta u dhigno u oran weyne wax alla waxaad ku qanacdaan baan idin sameeynaynaa dadku haday dhibaato sheegtaan waa la xal marin jiray inaga xalkeena wuxuu taagan yahay meel aan fadhiba jirin casinu fuq weynaa fahanaya ma fahantiin allaw ya dalkeeni tago ya midnima doona allaw ya dadkiisana heshis durugsan garsiya dagaalada ay ku riqdeen allaw nabad ku soo dayra allaw ya walaalahan isdilay daynu kala qada dambiyaday qabyaaladii gashiyo yadiyada dhiba darmantan jeclayay allaw ya xorriyo daya darmantan jeclayay allaw ya xorriyo daya damiir la wayashiyo allaw ya jaliga duga allaw ya darogada sunta qadka dabargoya doodaga maqan iyo allaw ya danjire radsha wadanigan dabayshada allaw ya degmada geeya allaw ya doqowdii horiyo duubcada u yeera Soomaalidan dayawdiyo shacbigan dadku wada qatay eedafaha adduunkiyo kulumay koonfurda calkeeda
dacadiyo runtabayaalow daha uga qaada allow yaa dariiqada saxda diinta ugu sheega NFD dusheediyo allow yaa dalka xoreeya danoodiyo wardheeriyo jigjiga diiradda u sara markayaa daruuraha cirkiyo roobka ugu deeqa allow yaa dukamada camiro dalaga noo beera dalxiiskana allow yaa u fura dunida guudkeeda dollarka iyo shilinkiyo allow yaa dakhliga yeesha dayartiyo caruuraha allow yaa dugsiga geeya muqdishona damashaad ka dhiga dagaalka nafoobay daqarada ku dhacaya allow nabarka daweeya waxaan doonayo yaalow qaranka noo daya allow yaa waxaan doonayo qaranka noo daya dhabarka juunay ha marin dhabii maqaluuliyoy dhallaankii waxaanu nahay aabbayaashood ku soo dhacsheen dhigoodu u daadan jiray xurriyad inay dhashaan calanka dhidibada u muday ka dheelmay gumaystihii dalkeenna ku dheeli jiray waqooyiga dhinac walbaba dhawaaqu markuu ka yimid dheemantii markay heleen dhibaatadii soo martay iyo dhaxanta ma dareensanayn dhambaal iyagoo siday muqdisho kala soo dhaceen ay leegadii bartanka u dhigeen markay iyagoo farxaddu u dhantay caleema isdhaafsadeen markay odayadii dhinteen dhammaaday muwaadinkii dhallaankii leegada sidii dhaylada la cune maxaa dabadeed ka dhacay waxaan hadda taagannahay aad u mahadsan tahay
marka waxaan jeclahay inaan u yeero qoraa Soomaaliyeed oo in badan taariikhda Soomaaliya kaydiyay qoray dabagalay Cabdicasiis Ibrahim Xildhibaan ku soo dhawow runtii xanuun badan baa ay haya waxaan la ooyayaa walaashay Soomaaliyeed degma ahaan ka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya koonfurta Soomaaliyana hooyadeed ay tahay anna sidoo kale waxaan ku faanayaa cid Soomaali iga ahi inaanay caawi jirin Soomaalidu ha noolaato nabad ha ku noolaato ayaan idin leeyahay aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin waxaan jeclahay markaan inaan u yeero qusulka guud ee wadanka Turkiga inoo fadhiya Ibrahim Dheere wallan Ibrahim ku soo dhawow waan salaamayaa Soomaalida caawa ka soo qayb gashay shirkan amiin kuuda luuliyo maalin qaali ah gaar ahaan waxaan salaamayaa fanaanada Hibaaq iyo fanaanka Cabdow iyo abwaanada Diana iyo dadka badan oo qaaliga ka soo qayb galay maanta kuuda Juulaay inta kadib runtii waa maalin qiimo badan oo ku weyn dadka Soomaalida ah waxaan loo baahan yahay inay u dabaaldegaan xilli kasto in xusnaadaan in macnaha ay ku timid kuuda luuliyo dhig badan xurmada dhib baa loo soo maray maanta oo xornahay Soomaali ay mid tahay waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo midnimada in laga shaqeeyo Soomaalinimada in laga shaqeeyo wadajirka waxaan ognahay Soomaali dhib badan bay soo martay 22 sano waqti ku filan dhib ku filan ay soo mareen haddii waxa ka dambeeyay waxa wanaagsan inay wadajirka iyo midnimada iyo Soomaalinimada ay ku dadaalaan aad baan idin salaamayaa Soomaali ha noolaato Soomaali ha midoodo waan salaamayaa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Dheere dabcan odayaal Soomaaliyeed iyo cuqaal ayaa inoo joogta laakiin markan waxaan jeclahay inaan inoo yeero gabar Soomaaliyeed oo inoo buraanburi doonta dabcan buraanburku wuxuu ka mid yahay gabayada hidaha iyo dhaqanka iyo suugaanta aan ku faano waxaan jeclahay inaan yeero Maryan Gowle oo ah gabar wariye ah ka tirsan telefishinka Royal TV oo dabcan hadda Shaafici nala joogo dabcan Maryan soo dhawow yaa ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay joogto maanta oo ah maalin aad iyo aad u qiimo badan oo ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad ugu qiimo badan oo ah kowda luuliyo waxaan leeyahay hambaliyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan caawa rabaa inaan baraambur yar halkan ka soo jeediyo galabta galab weeye gala habangada la maari Soomaaliya galabta galab weeye gala habangada la maari calanka guudkeena suurahan guulano hantiyay gumeesti baxayo gayhigeena laga beneeday calanka galabtii la saaro la wada gurmaaday ogayga Soomaaliyeed oo gunima ka baxay goyiga Soomaaliyeed oo gunima ka baxay cadawkinaga guurayo hoogeeduhuba farxeen cadawkinaga guurayo hoogeeduhuba farxeen ogada ka cayaaryana taagees walbaba la toomay ogeesiyaaliya gabdha handalin baa u kacay galabta galab weeye gala habangada la maarin rag badhigooda tahajo ka dhiidhiyeen shanta xidigoo kuga hadaman raga u gooy ogeesiyaal badan ayaa ciida lagu gediyey gumaysti naceebaye hey geeri doorbideen axmed gurey iyo ragii higeesiyada ahaa sayadgaiyo guutadii hiisi gacmaha adkaa ogeesiyadiis wahayelo hoogankada halu dhicin gabdhihii dahabkooday hiibsheen ayaa gurmaaday gabdhihii dahabkooday hiibsheen ayaa gurmaaday ogobeeyeyna cuka hashalka kuwii u gaalay
gobeeyeyna cuka haasheelka kuwii u gaalay oo gabdhii daabkooday hiibsheen ayaa gurmaaday geesiyow cabdulaahi hiisadada halu gaalay gayiga baariisasa hagarayo gurmaaday ee Soomaaliyay gobanimadu waxaan la gaadan karay ee intii ka gadooday ha guushano hantiday ee geedkayno hare heeyanaya la gooy oo gumaysa labaadna ciidenu yahaysan gelin gacanta kuwaad keeyagay higeena qaaliga oo cadawga geesaha fadhahayow dalkeena geeli aan jeclahay inaan markaan u yeero 1960kii kowdii luulyo waxaa midoobay labadii gobol ee Soomaaliya dabcan waxaa hankeenu ahaa inaan midayno shantii Soomaaliya dawladeennii dhalatay 1969kii waxay hiil iyo hoo iyo halgan toosaba la gashay sidii ay u midayn lahayd shantii Soomaaliya waxaan ka warqabnaa in ciidankeennii iyo qarannimadeennii iyo maanta waxa aan nahay baan ku gaarnay baahidii aan u qabnay inaan helno shantii Soomaaliya dabcan wali waa u soconnaa maantana waxaan rajaynaynaa in mar kale himiladaas aysan marna baabi'i doonin waxaan jeclahay inaan u yeero xildhibaan ka mid ah xildhibaanadii Soomaaliya Maxamed Cali Bilaal caawa kowdii luulyo waxaan u malaynayaa in dad badan caawa halkan ay ka hadleen maalinta qiimaheeda waa la sheegay waa maalintii ay isu tageen labadii gobol ee Soomaaliyeed gobolada Somaliland iyo goboladii koonfureed oo waqooyi iyo koonfurta ay noqdeen Somali Republic waxaan u malaynayaa caawa inaynu dabaaldegayno sanad guuradeedii 53aad waa 53 sanadood waxaan malaynayaa askariyo baa ogaa waagaan dadka hadda jooga damaba ogaaba wax isu tagay wax kale tagay toon Soomaalida noolaato idina noolaada waxaan rajaynayaa in barwaaqo lagu noolaado colaadu iska soo dhamaato dadku ay wada noqdaan mid wixii dhibaatana Ilaahay inta inagu dhaafiyo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh maxamed cali bilaal aad ayuu maasaya dabcan waxa inala jooga wariyaal badan oo Soomaaliyeed oo qaybta gadaal oo dhan fadhiya wariyaashan dabcan taageero badan ayaa u tihiin marka waxaan jecelaynaa haba taageeradiina ka ogaada shacabka iyo qaylada aw sacbisaan waxa inala jooga Awil Daahir Salaad waxa inala jooga Aadan Salamiin waxa inala jooga Duraan Shirwac dabcan waxay la tahay mas'uuliyiin kale aad qaali inoogu arweyn la joogan waxaan jeclahay markaan aan u yeero xaaji mas'uul sare marka badhowna heesiya ayaan geli doonaa taariikhdaas saas loogu dabaldegaa ragaa soo sameeyay laakiin aniga hadda ima muuqatay tii daba rag samay doono gabdhuhuna wax badan ay cawdeena bal aan garab siino xogaa aan dhulka iska qaadno maanta waa maalin taariikhiya waa maalin xusid mudan waa maalintii calankaas la taagay calanka waxa loo dabaaldegayaa dalka iyo dadka iyo calanka waa marka calanku asigu ma dhinta laakiin wax sharfo oo markasta u dabaaldego rabaa dad badanna waa u dhinteen waxaan idin xusiisinayaa marka raali ahaada dhalinyarada yaa waxaa jiray nin calankan hees ka mariyey oo la dhihi jiray Cabdi Kaamil Cawaale laba biladood uu qaatay mid geesinimo iyo mid bilad sharaf ah waxaan idin xusiisanayaa inuu calanku wax ajaa'ib yahay markuu dhahayo intaan dadan dhalan ayaa caawa joogo nadirban horidu gal niyadaydu waa meel haddii aana soo noqon calankeyga nuurow allahayow ku nabadgeli waxaan ahay naftii hore
وعناي نفتي وري هدي نبال لواينا دكستبا هنقطة نحاشيغا مالي بنهلو ناقود ياشيو نحبكان الاشا انت انا وحن عاو مريانو ولي ميسي لكن ايغا كيني لما دهايا حاج موسى مسؤول سرنين وهيس علن كان وهيس كالنت كوباد iyo kaalinta labaad sanadkan gabdhaha leh wal laga raali ah hanan erginaha nool dul qaata calan kaasaan ay ku ogaa gabdhaha waa kaasaan anu wax kale oo ku sharfa maahay kaasaan ay ku sharf waxaan rabaa marka kelmad yar inaan ku daro dalka waxa uu heeraya ninka wadaniga ah anigu qolo magaceed ma sheegayo ninkaana hebel ma sheegayo nin kasta wadaniga ku jiro wixii dhinta Allah ha u naxariisto adeeradan no weyn aamin de intaas marka leeyahay wadanigu markasta waa taagan yahay wuxuu u taagan yahay calanka iyo dhulka iyo dadka aan midowna laakiin caaw waxaan ku faraxsanahay saddex xafladood oo leega casuumay mid oo gobol ah iyo mid hadaa la kulmo hotel meelaha la sheegay adreeskii waa wada haya markii la yiri dhalinyaro yaryar dhigaysa xafladda aan sir ku laagada amayno ku qayrku ama ku jiro war bal ku cawada ka dhaxmo marka meeshana sidaasaan caawa ku imiday waxaan marka ku sii dadaarma ku sii aan ku xirayaa wax sheeg wax dugduga ka fiican in wax la sheego in wax la qabto la duga ka fiican marka aad iyo aad u mahadsantiin dabaaldega soo dhaweynayna sanad guuradan soo dhaweynayna dhalinyarada waa mahadsantiin gabdhahana waa mahadsantiin waxaan leenahay jiro jooga laakiin maxaa noo balama waxaan taaganahay meeshii la yiraahdo laga haajiro laakiin waa u soo haajirnaa inaan noqono oo dalkeena u haajirno talada aan ku danaayo sidii diinta u gashay ah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan gelaynaa heesii waa soo baashaanay cabaaraha soo hadalnay markan waxaan gelaynaa heesii waxa ugu horeeya kooxda dhalinyarada ah ee markii heesahooda ay dadku dhageystaan dabcan aniga aad ka jecelahay waa kooxda baashaalin group alla baashaalo markan waxa ugu horeeya bakar yare
Shua